hadalku wuu kooban yahay waxa weeyaan waxaan marka u horeysa waxaan baliyeynayaa walaal Firdawsa waxa weeyaan xilka ay ku guuleysatay hogaaminta iyo maamulista naadiga akhriska iyo qoraalka Ismaaciil Mire hogaamiyayaashii iyo waxa weeyaan maamulayaashii ka horeeyay ee naadigana dhamaantood waan baliyeynayaa waan bogaadinayaa iyagana waayo waxaan hubaa kullayba in aanu jirin wax matare haduu doono ha jiro wax yar tare haduu doono ha jiro waxaan hubaa in aanu wax matare jirin waxa u dambeeyay walaal Cabdiraxmaan Nadiif kullay ka Maxamuud ahaan aniga Cabdiraxmaan Astaanbu ee ahaayo markaan arko Ismaaciil Mire waan xasuusan jiray naadiga inta kale kullay aqoon buuran uma lahayn waayo majaal weyn buu hayay daanin isqaranayna ma aha oo waa ninka aragtaan oo isqaranayna deeb ma kaas waa shakhsiga ugu saameynta badan ee anigu kullay aan ku arki jiray naadiga mid kalena waa shaqadii ugu saameynta badnayd intii aan daawadaha u ahaa nidaamka iyo hawsha uu waday waxa weeyaan ururku waa nidaamkii milgeynta iyo maamuusida mudanayaal hadda nool waxa weeyaan Ismaan Cabdinuur Xaashi oo mufakir weyn waxa weeyaan suugaanyahan weyn aqoonyahan weyn wadaad weyn intaba ah in la maamuuso la milgeeyay isagoo nool la keenay wax weyn bay ahayd dhaqan ahaan Soomaali iyo deegaankeenana deemaynan aqoon dhaqanka waa mid hadda la bilaabay nin la oran jiray Maxamed Xaashi Dhamac Gaariyo reer Hargeysa ah ayaa isagoo nool buu wuxuu damcay inuu xilliga waxa madaxweyne u ahaa Daahir Yaaninkii la oran jiray wuxuu damcay bal hadda inuu xoogaa ka helo malaha dabeedna wargeys buu ku soo qaray tixyar oo uu ku leeyahay isagoo dhaliilayo naqdinaya culture-keenan aasi ogta ah ee qof marka uu dhinto inta xabaasha la geeyo baasaboorka intuu ka sii qaato xabaasha dulaadkeeda shaabada lagu dhufanayo la oranayo wallahi qof nool buu ahaa hada dhimay markaas wuxuu yiri horta dhimo af ma aha ee gool la nool yahay iyo ifkan kaaga baahnahay wax yar oo aqoonsiya oon aad u buurnayn oo waliba eegay igu sii amaaho i'tiraafka buuxee aakhira markaan go'o iilka igu sugayay ayaantan xabaal galo oo hintaan mutaystiyo akoonkayga laga jaro waxba hay siine si deebi buu yiri markaa barnaamij la yaab labo la bilaabay kaasna waa shaqadii ugu kullay cuslayd intii anigu aan arkayay shaqooyinka nidaamka uu ururku waa wax weyn oo akhriska qoraal bay qaabilsan tahay amarkii ugu horeeyay quraanka ku soo arooray iqrab uu ahaayo wuxuu inoo sheegay ahmiyadda iyo muhiimadda iyo maamuuska uu akhrisku leeyahay qoraalku naadiga waxaan ku codsanaynaa inay tayeeyaan oo tamareeyaan oo tiro badiyaan barnaamijta la qabanayo in la badiyo mar walba wax la badiyo wax tayo laba soo baxaya laakiinse haddii waxba marka hore wax qabadku hadduu yaraado waxa soo baxayana way yaraanayaan tirada iyo tayaduna mar walba waa equation oo waa isleego haddii tiradu badato waxa la hubaa tayaduna inay badanayso nidaamka socialka ama shaqooyinka arrimaha bulshada ka qoomiyad ahaan waa inagu yar yihiino waxa weeyaan qoomiyadeenu uma diyaar garaysana ka Soomaali ahaan inay ka shaqeyso arrimaha dinta guud waxaan kulli aaminsanahay laba qodob sabab u ah labada qodob waa dawlad xumada ama waa dawlad la'aanta oo dawladdu waa ta keenta in la qabto danta guudna waa socialkii iyo arrimihii bulshada qodobka labaadina waxa weeyaan sababta u ah iyadana kulli loo qaban waayo qoomiyadeenu aanay ugu diyaar garaysnayn waxaan dareemayaa culumta la barto in aanu ku jirin jaamacaadkeena hadda ama ay kooban yihiin culumta arrimaha bulshada khusaysa qof walba wuxuu bartaa wax isaga shakhsiyadiisa ka hadlaya ka doctorka waa shaqadiisa isaga ku najaxaya ka macallin wadaadka shariicada bartaa wax shakhsiyadiisa hadhow ku soo celiya dadka laakiin se culumta la culumul ijtimaac ama socialka marka horeba u diyaar garaysan inay bulshada wax tarto jaamacaadkeena iyo muassasaadkeena tacliimiga way ku tira yar yihiin tayada aynu garmeemayno aynu tabayno ee la xidhiidha socialkana aqoontaanay ku jirin ka qabiil ahaan hadaynu nahay dadka Soomaaliya sanaag iyo cayn degana way inagu yartahay nidaamka waxa weeyaan arrimaha danta guud way inagu yartahay oo dadkii kale markay nidaam gaar ah samaysteen mid kastaba maamul gaar ah oo uu kulli ku kala soo yahay uu samaystay maamuladaasna kulli waxbay sabab u tahay hal qodob baan doonayaa inaan aad u baraarujiyo halka qodobi waxa weeyaan nidaamka la yiraahdo in la maamuso oo waxa weeyaan la milgeeyo dadka wax tarka in la milgeeyo in la milgeeyo qodobka aad baan ugu celcelinaya dadkeenu kuma fiicna nidaamkaas oo wax weeyaan uma diyaar garaysna nidaamkan hal abuurka iyo nidaamka suugaantuna kulli waxaan aaminsanahay halka aynu
kalkaynu ka tababari la'aanahay ka buunbuunin la'aanahay inay tahay bulshadeenna waxay u badan tahay wada suugaanyahan qodobkaasaan ku soo koobayaa dhegaysigiina waa ku mahadsantihiin maamulka iyo qolada xafladda diinaysana waa mahadnaqay